naagtii ayaa waxaa la sheegay inay kusoo fikirtay in ay dhahdeen naag sirteed layma sal gaaro. Maanta waxaan rabaa inaan dhulka ku daro nin ganacsada ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waa idin salaamay dadka u tahay haween iyo dadka u tahay maalinba. Waa idin salaamay inkastoo aan haween ii tahay. Videoan duubtiis waxaan ku jiraa haween. Waa ku salaamay haddii haweenku tahay haddii maalinku tahayba. Waxaan rabaa maanta qiso aad iyo aad u xanuun badan in aan kuu soo diro. Qisadaas aad iyo aad u xanuun badan tahay. Ila dhegeyso qisadan. Nin waxay ku dhacday lagu magacaabo Maxamed Yuusuf Kabiir oo nin Sacuudiyaan ah. Wuxuu ahaa nin ganacsada ah oo ganacsiyada kuwa ugu caanka badan oo ahaa. Wuxuu ku noolaa Sacuudi. Ninkan wuxuu ka mid yahay ganacsiyada kuwa ugu sareeya oo magac ku leh meeshaas uu taagnayay. Marka waxaa jirtay mar walbo ganacsatada sanadkii in ay meel iskugu imaadaan. Mar walbo sanadkii meel ay iskugu imaan jireen si ay wax cusub soo saaraan. Ganacsatada dhan oo kuwa kasta oo xisaabsan aad iyo aad loo yaqaano ayaa meel iskugu imaan jirtay. Kadib waxay ka wada hadli jireen ganacsiyada qaabka u socdo iyo waxay soo saari lahaayeen saas ay u hadli jireen. Markiiba kadib saacado kadib ninkii waxa uu imaaday haween ama dumar saad u taqaan ama naag ayaa u imaaday xaggiisa ay soo baxday. Naagtii ayaa waxaa la sheegay inay kusoo fikirtay in ay dhahdeen naag sirteed layma sal gaaro. Maanta waxaan rabaa inaan dhulka ku daro nin ganacsada ah oo dhahay wax la igama qaadi karo. Marka ninkan ganacsada waa u imaaday waxa ay u dhahday waa u wacday. Markii ay u wacdo waxay dhahday shaqo yariis ay qabanaysaa. Waxaan rabaa in aan ku siiyo lacag ka badan 20 diinaar ay dhahday u dhahday. Kadib wuxuu dhahay shaqo yariis iyo 20 diinaar isma leh. Ninka ganacsiyada waxaa qaaday hunguri macquul wala noqon waayay asoo ku xisaabtamay lacag yar oo lacag weyn uu arkay. Markaas maskaxdiisa waa la yaabay oo zaid oo la yaabay markaas arintaas. Kadib waxaa dhacday wuxuu u dhahay arintaas macquul gal ma wala macquul gal waayo shaqo yariis 20 diinaar. Marka arintaas u dhac doonto fiirada shaqada waxay dhahday maxaan ku qabanaa marka aan ku qabtay shaqada sirta ka faa'iidaystay. Marka wuxuu u dhahday waxa isqaw jirnay ninkaasna 10 sano isma arkin. Marka waxaan rabaa in aad maxkamadda aad tagto ani aad isla jirno aad soo dhahdo naagtan 10 sano isqabnay marawi waa iga soo dhamaatay. Waxaan rabaa in aad iska furso saddexdeed siiyo kaliya laasna maxkamad agteed ka soo dhahdo midka oo agtiis cadaalad noo kala goona agtiisna saas ka soo dhahdo. Wuxuu dhahay arintaas heristaas darteed maalaas lacag siinay agtay waxba ma keenan waa taga halaas ka badan waxa kala soo dhaamayno halaas bis ii soo dhanin naagtan waa isfurnay 10 sano isqabnay bis naagtan waa iga soo dhamaatay alkaana ku furay saddexdeed wasi halaas lama soo dhaawday waa soo wadaacay. Ninkan guriga qaaday damiis dhan lacag loo saayay ma fikirin wuxuu ku dhici doono ma programming wuxuu u imaan doono. Marka maxkamadii wada aadeen kadib waxay u dhahday wuxuu dhahay naagtan rabaa in aan iska furo. Kuwa is wada hadlan waa wada salaameen. Wuxuu u dhahay naagtan rabaa in aan iska furo. Waxaan isqabnay 10 sano ayaan isqabnay. Marka naagtan sabab la'aan iyo bataatan waa iga hor amaantay waa iska fur rabaa dibsaday in iska fur rabaa. Aad saddexda dalaq ku wareejiyay ku wareejiyay. Kadib albaabku ku soo baxay. Markaas albaabka si baxro naagta u wacday soo noqon markuu waa naxay. Markuu wuxuu dhahay qoftan ku sil rabtaa lacagtan ku sii rabtaa waa naxay. Marka kadib waxay dhahday ninkan 10 sano isqabnay wax xaquuq ah isyu ma jiro meesha baxar tulub
ninkan ma inkiri karo oo afkiisa ciyoob uu ka dhahay aanay naagtan 10 sano is qabnin naagtan waxay ka tahay xaquuq ay masiinin wilis adusi siinayna dhaarto wilis ma basiinin bo xaquuq wilis ma siinin bo